Transfer news update ayaan eegi doonaa insha Allah muuqaalkan wararkii u dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda. Kooxda Liverpool mise Manchester City ayaa indha ku hayso xaqiijinta Mark Kreuer kabtanka kooxda Crystal Palace ayaa indhaha ku wada hayaan sida uu xaqiijiyay saxafiga caanka ee Fabrizio Romano. saxafiga lagu kalsoon yahay ee Fabrizio Romano ayaa ku xaqiijiyay boogista rasmiga ah ee difaaca reer England ee Mark Kreuer oo weli doorbidaya inuu ku biiro Liverpool inkastoo ay jiraan warar kale oo la xiriirinaya Manchester City iyo kooxo kale oo waaweyn oo Europe inta lagu kala jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. marka insha Allah fadlan waxaan ka codsanaa walaal muuqaalka like noo saar, subscribe noo saar haddii noo ahayn muuqaalka noo sheegay waana ku mahadsantahay. Romano ayaa cadeeyay in mowqifkiisa Kreuer uusan u bedelin isla markaana uu Liverpool siinayo mudnaantiisa koowaad isagoo rajeynaya in heshiiskan dhaco ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga la xirin. wadahadallada ayaa weli u socda maamulka Reds iyo Crystal Palace iyadoo ciyaaryahanka muujinaya xiiso weyn oo uu qabo xirashada maaliyadda guudan ee Liverpool. Kreuer oo ka mid ah difaacyada ugu sareeya horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ayaa noqday bartilmaameedka kooxo badan. Si kastaba rabitaankiisa shakhsiga ayaa laga yaabaa inuu noqdo go'aanka ugu weyn ee mustaqbalka ciyaareed haddii Liverpool ku guuldareystay inay heshiis la gaarto Crystal Palace. xagaaga Romano ayaa sheegay in kooxda ay dib ugu soo laaban doonto saxiixiisa sanadka dambe. sidaas ayuu xaqiijiyay. sidoo kale Manchester City ayaa indhaha ku hayso. sidoo kale kooxda Crystal Palace ayaa horaan sii dhadheysay bedelkiisa haddii uu ka tago inay u dhaqaan ciyaaryahanka difaaca ugu dheela ee Switzerland la magaciisa la yiraahdo Manuel Akanji oo 15 milyan kooxda Manchester City sanadkii 3 sano ka hor kaga soo iibsatay kooxda Borussia Dortmund ayaa bedelkooda u ah Crystal Palace qorshahooda. inkastoo weli Manchester City ay idan cadeysanin inay iib u yahay inay talaatay balse ayta ayaa bedelkooda sii diyaarsada waxa la jira kooxda Crystal Palace. sida kale wararka labaad ee ah suuqa kala iibsiga ciyaaryahanka kabtanka dhaxda ugu dheela Manchester United Bruno Fernandes ayaa asagana wajahan inuu baxo laga yaabo suurtagalnimada ah sababta tahay kooxo waaweyn ayuu xiise ka helayaa Bruno Fernandes. sidoo kale saxafi caan ayaa xaqiijiyay wariye Ben Jacob ayaa sheegay in wakiilada Bruno Fernandes si toos ah oo la xiriiray kooxda Saudi Arabia ee Al Ittihad ayaa xiise gaar u lacag waal ayaa la doonay. si kastaba ha ahaatee Manchester United ma dareemayso wax cadaadis ah oo xaaladan ku aadan iyadoo aan la filanaynin wadahadallo rasmi ah oo u dhexeeya labadan koox haddii Fernandes uusan bedelin mowqifkiisa ku aadan mustaqbalkiisa. qadka dhexe ee reer Portugal ayaa horay u diiday xiisaha Al Hilal iyo sidoo kale Al Nassr oo saaxiibkiisa hore Cristiano Ronaldo isagoo oo cadeeyay inuu doonayo inuu sii joogo Old Trafford ugu yaraan hal sano oo kale. sidoo kale sanad ayuu rajeynaya inuu sii joogo si kasta oo xaaladda sii indhay. laakiin dhanka kale Al Ittihad ayaa waxa qasab ku ah inay fasaxdo ciyaaryahano waaweyn ka hor inta aysan u yeelan inay miiska saaraan dalab rasmi ah oo lagu qaadan karo xidiga reer sare sida Fernandes. aytana qadka dhexe ay iska xoojinayaan kooxdan Al Ittihad maadaama koox caalami ay tahay oo tartamada badan ay ugu jirto dhanka Saudi Arabia. sidoo kale haddii aan qodobka saddexaad ciyaaryahanka Chelsea ayaa talaabo weyn u qaaday weeraryahanka u ciyaara Barcelona sida uu sheegay David Ornstein oo ka tirsan The Atlantic. kooxda Chelsea ayaa qiimeynaysa suurtagalnimada ay kula soo wareegi karto Fermin Lopez. inkastoo ay jirin wax xiriir toos ah oo la sheegay Barcelona haddana la yeesheen Barcelona haddana Chelsea ayaa wadahadallo la furtay wakiilada ciyaaryahanka 22 jirkan si ay u eegaan fursadda lagu heli karo haddii ay ciyaartoy ka tagaan kooxda maadaama Barcelona ay buuxin karto booska uu ka ciyaaro Fermin.
warbixinta soo baxday Diaro Sports ayaa sidoo kale shaaciyay in Chelsea ay diyaar u tahay inay bixiso lacag haddii ay Barca ogolaato inay wada hadlaan. sidoo kale heshiiskiisa ayaa loo qiimeynayaa 1 bilyan maadaama ninkan ciyaaryahankan da'da yar uu sanado badan u harsan yahay, balse Chelsea ayaa sidoo kale fasaxi doonto Marco Johnson asagana wadadiisa ayaa u furan maadaama ay uu xiise ka helayo kooxo badan oo ka ciyaara horyaalka Premier League iyo sidoo kale kooxo waaweyn ee Yurub. waxaa ka mid ah kooxda Newcastle United ayaa qiimeynayso maadaama ay Chelsea ay hadda Fernando qodobka afaraad waxa Fernando ayaa ku dhow Chelsea Johnson oo u wajahan kooxaha Premier League ka dhisan. marka saxafiga lagu kalsoon yahay David Austin ayaa shaaca ka qaaday dhaqaaqa la filanayo ee Chelsea saameyn karto maalmaha yar ee ka harsan suuqa kala iibsiga xagaagan. warbixinta ayaa sheegaysa in Alejandro Tranjo Manchester United si weyn ugu dhow yahay ku beerista kooxda Stamford Bridge. waxaa la filayaa in Alejandro Tranjo uu ku dambeyn doono Chelsea. laba dalab ayaa la diiday ilaa hadda, balse wadahadallada way socdaan. waxaa la aaminsan yahay in heshiiska dhici doono xitaa haddii maalinta ugu dambeysa uu yahay suuqa kala iibsiga. dhanka kale Nicolas Jackson wuxuu qarka u saaran yahay inuu ka tago Chelsea. weeryahanka 24 jirka ee reer Senegal waxaa xiise u muujinaysa kooxo badan oo horyaalka Premier League iyo Yurub. Newcastle United ayaa doonaysa inay xooga saarto booska weeryahanka number 9 waxaana Jackson ka mid yahay bartilmaameedyada ugu weyn ee doonaysa Newcastle. inkastoo ay sidoo kale booska ay ka buuxinayso uu hadda banaan doono laga yaabo mustaqbalka fog Alexander Isak. sidoo kale Jackson wuxuu xiise ka helayaa Aston Villa iyo tababaraha Emery ayaa inkastoo Jackson xiise ka helayo Aston Villa iyo sidoo kale Bayern Munich ayaa weli ka mid ah kooxaha ka fiirsanaya saxiixiisa. Jackson ayaa dayman noqonaya maadaama Chelsea ay diyaarinayso maadaama qorshayaal cusub ay sameynayso. laakiin Chelsea ayaa hadda ka shalayn doonta sida horaan wariyaal badan ay sheegeen. Jackson iyo Palmer ayaa ah labada ciyaaryahan ee Chelsea xiriir toos ah ka saxiyo oo hadda kor wariyahano badan iyo ciyaartoy badan ayaa sheegeen in Palmer la'aantiisa uusan jiri doonin Johnson la'aantiisa, halka Johnson la'aantiisa uusan jiri doonin Palmer sida falaqayaasha Sky Sports ay sheegeen. balse Chelsea ayaa indhaha ku hayso waxyaabo badan iyo qorshe badan. sidoo kale dhankaas iyo Arsenal hadii u leexo, Arsenal oo weli doonayso ciyaaryahano fara badan sida ciyaaryahanka ay u dheelo ay kooxda Bayer Leverkusen ee difaaca bidix Piero Hincapié. sida ay sheegaan faniska ama taageerayaasha Arsenal ayaa sheegay Arteta shaqo fiican ayuu wadaa maadaama uu raadinayo difaac kale Idris maadaama uu yahay ciyaaryahanka hadda Piero Hincapié uu yahay ciyaaryahan ka ciyaara boosas badan sida difaaca dhexe, difaaca bidix, midig iyo sidoo kale xitaa weerarka xitaa wuu caawin karaa, qadka dhexe xitaa wuu dheeli karaa. waa ciyaaryahan macnaha boosas badan ka ciyaarta. hadda coachkii hore ee Bayer Leverkusen Xavi Alonso ayaa u adeegsan jiray qorshayaal badan maadaama uu Arteta u arkay ninkan qorshaha uu difaac la aaminsan yahay inuu boosas badan buuxin karo. sidaas ayuu ka faa'iideysanaya Arteta maadaama Arteta ka cabsi qabo in sanadkan uu ku fashilmo horyaalka. sidaas darteed uu soo xoojinaya inta suuqu furan yahay si uu hadhow tijaabiska u dhaxeeyo ciyaartooyda markay dhaawac galaan ciyaartooy meel walba buuxin karo si uu helo. kooxda Arsenal ayaa hadda si buuxdo oo difaacyo badan ilaa laba boos la joogo, laakiin balse difaacan ayuu kusii xoojin doonaa qorshaha Arteta. wararkaas waxaan ogahay wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga tan iyo inta dambe aan kulmi doono sidaas nabadgelyo. waxaan ka codsan walaal muuqaalka like noo saar, subscribe haddii noo ahayna subscribe noo saaro, muuqaalka noo sheegaray. waana ku mahadsantihiin taageerada aad muujinayseen ciyaaraha maanta TV.